علي خليف قليل وكقيب قلي شركة قولها دحية حسبي وداني وبرعا كفرمي علي خليف وحا وكهض قضب حساسية وحانا وشوينا ولي كقيب قلي شيرو حسبي كله ليهاي وحانا وقمهن حسبي وداني يسوقوا مثلا يا خاتمه إنه وقمهد علينا مرتقات كاو سمعيين horta waxayba ku fiican tahay kulmiye shir uu leeyahay wali ma tagin marka bal raalli alayga hado aan ku celiyo waxaan u mahadnaqayaa madaxda xisbiga wadani iyo taageerayaashiisa inay martiqaadka annagoo khaatumaan noo fidiyaan mar walbana ilaa intii aan wada hadalka la gallay dowladda Soomaaliland xisbiga wadani madaxdiisu mar walba taageeray la garab taagnayd wada hadalka iyo heshiisyada la galay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waa arrin aanan ilaaweynin waa abaalay noo galeen aanu mar walba xusuusnaanayn waxaan rabaa iyana inaan magaalada Burco iyo madaxdeeda iyo shacabkeedana aad iyo aad ugu mahadnaqo Burco waa wadnaha Soomaaliland waxaana ay mudan tahay in loo ogaado intii hore ee magaalada Burco iyo dadkeedu ay gobonimo doomnimo haato kicitaan marba qadiyadu waxay tahay haatee inay door aad iyo aad u weyn ay taariikhda ku lahaayeen haddana looga minan fadhiyo waxaan maqlaynaa shirar dhowr ah oo magaaladan loogu talagalay waxaan rajaynaynaa kuwaasu inay lagu guulaysto oo ay hirgalaan waxaan qabaa shirarkaas haddii la qabto oo lagu guulaysto inay wax weyn oo weyn ka tari doonto Soomaaliland koritaankeeda iyo midnimadeeda iyo horumarkeedaba reer Burco arrintaa idinkaa laydinka fadhiyaa waqtigan aynu joogno wax badan oo isbedel iyo kacdoon ka socda geeska Afrika oo dhan inta af Soomaaliga lagaga hadlo dhan waxaan qabaa oo aanan ka marin habaabayn in Soomaaliland door weyn ay ku leedahay horumarka iyo nabadda iyo midnimada inta af Soomaaliga ku hadasha waxaan qabaa inaan laga hadhi karaynin علي خليف قليل waxa uu sheegay in wali ka dhul sugayo hadalka ay wada yeesheen madaxdii xukuumadihii hore ee kulmiye reer Burcana waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dad qaranka magaciisa kor u qaaday isla markaasina guba علي خليف waa mas'uul saameyn badan ku leh gudaha Soomaaliland waxaana uu dhowr jeer ku dhawaaqay in arrinka khaatumo wax laga qabto balse wali jawaab cad kama hayo warkaasi isbedelka iyo kacdoonka geeska Afrika ka socda waxaana mudan hawshu maamul iyo dawlad iyo maamul jira oo ma siyaasadda karkarinteeda iyo qaaxideeda iyo aragti dheer oo laga sugayo waxa leh xisbiyaday tahay inay waxan soo bisleeyaan inay ka soo doodaan inay tilmaamo ka soo bixiyaan loolanka siyaasadeed kuma eka uun marka doorashadu jirto xisbiga guulaysta wuxuu noqonayaa ka intaan looba dhaqaaqin doorasho iyo tartan iyo xifaaltan cidda isku mashquulisa arrimaha ummaddu ay leedahay oo loo baahan yahay in aad looga doodo oo maanta wax weyn baan halka ka bartay arrintan niqaabka loo xidhanayo waxaan u malaynayaa inaan meel fog lagu gaadhayn niqaabkana aan iska dhigno
golayaashana dooda looga baahan yahay geesinimadu meeshaasay ku jirtaa. geesinimadu ma aha hub la qaato, geesinimadu waxa weeye waxa dhabta ah ee ummadda hor yaalla ee la kala doordooranayo ciddii tilmaanta oo qeexda waxa loo baahan yahay. inta badanba waa laba daran mid dooro, wax xun iyo wax wanaagsan. wiilka yaree 5 jirkii wuu gartaa, laakiin laba daran mid dooro waxa uu ka talin karaa cidda cadna u ah geesinimana ay ka muuqato. arrinta ugu culus ee Somaliland maanta hortaala aniga aragtidayda waxa weeye arrinta dhalinyarada iyo waxbarashada dalkan taala. waxaana maqlayaa oo laguba faanfaanaa ilaa 6,000-7,000 oo arday yaa jaamacadaha Somaliland ka baxa. intee baa shaqo loo hayaa? intee baa leh xirfadii iyo aqoontii loo baahnaa oo ku soo bartay iskuullada iyo jaamacadaha? waddani hadduu rabo inuu kasbado dadka, wakhti waa inuu geliyaa. khibraddii hore aynu lahayna waa in dib loogu noqdaa. cid allaale ciddii aynu uga faa'iidaysanayno adduunkana waa in adlub alcilma walow kaana fi siinkii xadiid nabowiga. waxaan hadalkayga ku soo koobayaa dhibaatooyin baa Somaliland ka socda. maantana waaba maqlayay nin oday ah oo midhayn guddoomiyaha awdal gobolka awdala hadalka uu ku hadlayay hadal la dhayalsan karo maaha. kuwa bari ka socda, ceergaabo ka socda, dee waxaan u malaynayaa Soomaalida waxay tidhaahdeen tuke iyo xuusha midba war la weydiiyo. waxaa la yidhi tukow goormaad wax dareentaa? markaan arko laba qof oo wada hadlaya. xuunshana waxay tidhi waxaan wax dareemaa marka nabarku ama igu dhaco ama agtayda ku dhaco. haddaan la dareemin, haddaan garowshiya laga bixin, haddaan loo dadaalin dhibaatooyinka la tilmaamayo, wala Somaliland meel fog baa laga dooni doonaa. anagu taayadii kuma soo koobaye insha Allah Somaliland la wada leeyahay yaynu ku guulaysan doonaa. waana mahadsantihiin.